Bismillah kusoo dhawaada xarunta waxbarashada Irmaan Educational Center. Halkan waxaan ku qaadanaynaa hot conversation wada sheekaysi kulul. Waxaan ku sheekaysanaya A iyo B. A ayaa ku hormarta waxay leedahay it is believed waxaa la aaminsan yahay that you are countryman inaad tahay reer baadiye who fled from the countryside kaasoo kasoo qaxay baadiyaha. So when do you hope goormee rajeynaysaa to return to your region inaad ku laabato gobolkaaga? Since maadaama it is too complicated to you ay aad kuugu adag tahay to deal with inaad la degto ama aad la noolaato townis people maxaan dhahaynaa dadka tuulooyinka ama dadka magaalooyinka inaad la noolaato maadaama ay kugu adag tahay goormee u laabanaysaa gobolkaaga. Ogeysiis iskuulku waxa uu bixiyaa course English ood ku baran karta si lacag la'aan ah. Course-ka waxaa lagu qaadanayaa 4 buug oo isfasiraya muuqaaladooda. Haddaba haddii aad doonayso in nagala soo xiriir WhatsApp number-ka halkan kaaga muuqdo mahadsanid. B waxay leedahay I must not astonish at you waa inaanan kula yaabin because maxaa yeelay this a proverb waxaa jirto mahmaah which taasoo says dhahayso ama which says taasoo dhahayso the kettle calls the pot black isuma jeedaa islaanka laay. So it is a human nature waa dabeecadda bini'aadanka to call the people what they are not inay dadku u yeeraan waxa aynan ahayn. Haddaba haddii cashka ka hesho la garay siina sheer garay. Ayaa dhahayso you are actually ignoring the truth xaqiiqdii waxaa iska indhatiraysaa runta but laakiin you had better to talk to me calmly laakiin waxaa ku wanaagsanaa lahayd ama ku wanaagsan inay la hadashid si degan otherwise haddii kale they won't be love between us maxaan dhahaynaa wax nabad ah dhexdayna ma ahaa doonto ama heshiis ma ahaa doono. In fact xaqiiqdii if I had known that you are like this xaqiiqdii haddii aan ogaan lahaa inaad tahay sidaan camal I would not have spoken to you kulama hadli lahayn. So it is better for you to live in front of me waxaa kuu fiican inaad ka tagto horteyda since maadaama you turned a person of no value aad isku bedeshay qof aanan wax qiimo aan lahaynin. Ayaa dhahayso why are you dragging to have a conversation with me maxaad sababtee baad uga cagajidaysaa inaad wada sheekaysi ila yeelato ama aad ila samayso. Please don't afraid of me fadlan ha iga cabsanin because maxaa yeelay I don't swallow the people dadka ma liqo ha iga cabsanin maxaa yeelay aniga dadka ma liqo. Whoever you are qof waliba aad tahay whether you swallow people or not haddii aad dadka liqdo iyo haddii kaleba I have full confidence that I can defend myself from a person like you. I have full confidence maxaan dhahaynaa waxaan isku qabaa kalsooni buuxdo that I can defend myself from a person like you taasoo aan uga difaaca karo nafsadeyda qof adiga camal ah. But laakiin you are quarrel person waxaa tahay qof qaylo badan and I am not keen on quarrel aniga kama helo ama kama helo keen on waa keelid kama helo qaylada kama helo. Ayaa dhahaysa marka I'm sorry maxaan dhahaynaa I am sorry to hear that waan ka xumahay inaan maqlo taas. Don't you know ma ogid miya quarrel is the best way qayladu inay tahay wadada ugu fiican which we can learn this language taasoo aan ku baran karno luqadan. B ayaa dhahayso if you believe that you have wrong idea maxaan dhahaynaa if you believe that haddii aad taas aaminsan tahay you have wrong idea waxaad haysataa fikrad qaldan ayaad haysataa. Most of the students in our class point to you inta badan ardada fasalkayna waxay kugu tilmaamaan that you are the lion of the class inaad tahay libaaxa fasalka. But laakiin today maanta I wanted to show you waxaan doonayaa inaan ku tuso that you are the cat of the class inaad tahay bisada fasalka. So are you ready diyaar ma tahay? First look at me well ugu horeyn si fiican ii soo fiiri. Whom do you think that I am yaa ii malaynaysaa inaan ahay. Don't you know ma ogid miya I have 3 years of experience in English language ma ogid miya inaan 3 sano oo khibrad aan leeyahay luqadda Englishka or you are mistaken someone else mase waxaad igu qaldaysaa qof kale ayaad igu qaldaysaa. Ayaa dhahaysa marka you are too wrong aad ayaa u qaldan tahay. I have 2 eyes waxaan leeyahay 2 indhood which Allah provided me taasoo alla ii siiyey which Allah provided me maxaa waaye kuwaasoo alla ii siiyey to classify things inaan ku kala caddeeyo ama aan ku kala saaro sheeyaasha. And I know what you are waana oga waxa aad tahay but laakiin to praise yourself is foolishness
maxaan dhahaynaa but laakiin to praise yourself inaa nafsadaada aad ammaanto is foolishness maxaan dhahaynaa waa doqonnimo. I see your eyes but they appear to be artificial. maxaan dhahaynaa I see your eyes waan arkaa indhahaaga ama waan ujeedaa but laakiin they appear to be artificial waxay laakiin u muuqdaan inay yihiin artificial ama gacan ku sameys because maxaa yeelay when I meet with my classmates marka aan la kulmo saaxiibadayda aan isku galaaska nahay normally sida caadi ahaanta they sweet way dididaan and hesitate way ka shakiyaan to share dialogue with me in aniga wada sheekaysi ila wadaagaan ama ila sameeyaan. So sidaa darteed where did you borrow this bravery today halkee baa kasoo amaahsatay ama kasoo deensatay geesinimadan maanta halkee kasoo deensatay. B ayaa dhahaysa marka don't tell what you are not ha sheegin waxa aadan ahaynin. I know much more about you wax badan ayaan kaa aqaanaa. Don't tell what you are not ha sheegin maxaan dhahaynaa waxa aadan ahaynin. I know much more about you waxaan kaa aqaanaa wax badan ayaan kaa aqaanaa. And you really an infant according to me. And you are really an infant according to me maxaan dhahaynaa according to me xaqiiqdiina markii aniga xaggayga loo eego adiga dhalaan ayaa tahay ama cunug ayaa tahay because maxaa yeelay I was present at your birthday waxaan xaadir ahay ama aan joogay dhalashadaadii ayaan joogay. I remember your age waxaan xasuustaa da'daada but laakiin I am very happy aad ayaan u faraxsanahay that I have told you in aan ku baray the best way wadada ugu wanaagsan you can deal with all the people aad kula dhaqmi karto dadka waaweyn ama kaa waaweyn. So go to your bed soco ee aad sariirtaada. haddaba wada sheekaysigeena halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay sheer garay sidoo kale cashka la garay weysiiskana